kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal gebi ahaantiinba halkani waa ayaha janaal ku soo dhowaada warbixin xiise leh oo maanta aan idkaga hayno 5 ka mid ah cunooyinka halis ku noqon kara caafimaadkaaga haddana si dabiici ah loo isticmaalo. haddaad janaalkan ku cusub tahay fadlan subscribe noo saar ku soo biir like-tii share-tana waa xaggiina markana ku soo dhowaada warbixintaasi oo faahfaahsan. waxaa laga yaabaa in ay u muuqato inaanan waxba ka jabnaynin in la cuno qaar ka mid ah cunooyinka aan imikadii soo gudbin doono, laakiin waxaa jira cunooyin qaar oo ay ku horseedi karaan dhibaatooyin caafimaad oo aad u fara badan. marka qaarkood cunista xad-dhaafka ahi waxay khatar weyn ku keeni kartaa noloshaada, khaasatan waxay horseedi kartaa dhimasho iyo xanuuno aad u fara badan. waa in aad ugu taxadirtaa gaar ahaan marka ay timaado cunista 5 nooc ee cunooyinka soo socda aan idin soo gudbin doono. digirta cas aad ayaa loo wada garanayaa, khaasatan gudaha dalka Soomaaliyana si weyn ayaa looga isticmaalaa. digirta ayaa la sheegay inay leedahay caafimaad aad u fara badan, halka digirta cas oo ka mid ah qaybaha digirta waxaa la sheegaa in ay ku jirto borotiin, fiber, fitamiino iyo weliba macdan aad u kala duwan oo aad u fara badan. balse waxaa jirta halis in ay keeni karto cudur ama ay sababi karto dhibaato dhanka caafimaad haddii aad cunto iyadoo aan si wanaagsan loo bislaynin ama aan aad loo karinin. waqooyiga dalka India ayaa si aad looga isticmaalaa digirta noocan ah, waxaana ku jira walxo dufan ah. saliidda ku jirta ayaa waxay aad u adag tahay in ay ku milanto caloosha, maadaama qofka maalinta raashin kale oo kala nooca uu cunayo. haddii aad digirtani cunto iyadoo aanan aad loo karinin, waxaa dhici kara in caloosha ay ku xanuunto iyo in aad adigu matagtid. waxaa ku jira sun dabiici ah oo loo yaqaano enzyme trypsins. waxay suntaasi ka hortagtaa in si wanaagsan loo dheefshiido marka ay caloosha gaarto. marka aan soo koobno digirtan ayaa ka hor inta aanan la karinin, waxa wanaagsan in biyo lala dhigo muddo saacada oo ay gaarayso 12 saacadood. nambarka 2, sawirka iminka idiin muuqda waa cunto oo iyadu loo yaqaano kongu. cuntada noocani ah waxaa inta badan laga helaa dalka Indonesia. cuntadani waxaa cuna dad aad u fara badan, waxaana lagu daraa waxyaabo kala duwan si ay dhadhan u yeelato. cuntada kong marka la hagaajiyo waxaa lagu daraa cunooyinka ay ka midka yihiin baradhada, hilibka, suugada, qudaarta iyo wax waliba oo markaa la diyaarinayo sida cabitaano fara badan oo kale ayaa iyaguna lagu daraa. haddii aad cuntadani iska badiso waxaa ka dhalan karta waxyeelo. waxay keeni kartaa labo xanuun, dhibaatooyin xagga neefsashada ah, suuxdin iyo sidoo kale xanuunada dhanka maskaxda ah. hase yeeshee kiisaska dadka inta ay cuneen ku sumoobay ee dhintay cunadani ayaa aad u yar, balse waa in qofka uu mar walba ka taxadiraa markii uu adeegsanayo cuntada noocani ah. nambar 3, farmaajada loo yaqaano cashew waa mid ka mid ah farmaajooyinka ugu halista badan caalamka. waxyaabaha yaabka leh ee ku saabsan nooca farmaajadan ayaa ah in uu ku jiro gooryaanka. shakadan markaad maqasho niyaddaada waxyaabo fara badan ayaa ku soo dhacaya. farmaajada noocani ah ayaa ka mid ah dhif iyo naadir inta la helo. farmaajadan ayaa waxaa mararka qaarkood ka dhasha matag iyo shuban qofkii aad u adeegsada. nambar 4, qudaarta nooca loo yaqaano rhubarb. rhubarb waa nooc ka mid ah dhirta caleenta ee loo cuno sida miraha oo kale. waa mid ka mid ah cunooyinka ugu caansan ee laga isticmaalo dalka UK. waxay rhubarb dadku ay u cunaan markii ay doonayaan in ay cunaan cunto aad u fudud, balse waa in aad ka digtoonaadataa cuntadani sababtoo ah caleenteeda cagaaran ayaa sababi karta dhibaatooyin dhanka caafimaad. midda ugu muhiimsan ayaa ah in caleemaha aad ka jarto, maadaama haddii ay calooshaadu ay gasho qofka markaa uu lalaboonayo. qudaarta noocani loo yaqaano rhubarb waxay inta badani jirka ka dhamaysaa macdanta. khubarada dhanka caafimaadka waxay sheegeen inay sidoo kale sababto dhagxaan kelyaha fariisata haddii aad badsato qudaartani. waxaa weli socota dood ku saabsan waxyeelada ay leedahay caleentani qofka markaasi adeegsada. nambar 5,
kalluunka nuuca loo yaqaano fugu. Kalluunka nuuca loo yaqaano pufferfish fugu waa kalluun ugu sunta badan ee adduunka. Jirka kalluunkani waxaa ku jira sunta la yiraahdo tetrodotoxin, waxaana la sheegaa in ay ka khatar badan tahay sunta kale ee ku jirta kalluumanka kale ee kala duwan. Inkastoo kalluunkani khatartiisa ay badan tahay, ayaa haddana waxaa jira dad aad u jecel sababtoo ah dhadhankiisa ayaa aad u macaan. Sida kaliya ah ee sunta kalluunkani ugu badbaadi karto ayaa ah in aad si fiican u kariso. Haddii aadan u bisleynin sida loogu talagalay, waxaad haddaba karinaysaa sun adigu nafsad ahaantaada ku waxyeeleyn karta. Dalka Japan ayuu aad caan ugu yahay kalluunkani fugu. Qofka karinaya kalluunkani waa in uu sanado badani qaataa tababar ku aadan sida loo kariyo kalluunkani. Inta ayaan ku soo koobaya 5 nooc ee kala duwan ee dhibaatooyinka u keeni kara kana mid ah raashinka ee caalamka laga adeegsado. Sidaa iyo nabadgelyo.